deegaamada Puntland ayaan qaarkood bad lahayn sida markaasi magaalooyinka waaweyn ee laamiga ku teedsan hase ahaatee khuburo reer Puntland ah ayaa isku dayay in ay dadka fahansiiyaan cunida kalluunka Cismaan Sheekh Salaad waa takhasus ku takhasusay kheyraadka badda isla markaana magaalada Boosaaso ayuu waxa uu ku leeyahay dhowr goobood oo lagu cuno kheyraadka badda sida maqaayada seafood waxaana uu iminka kalluunka geeyaa ilaa iyo gaalkacyo Garowe Qardho iyo meelo kale taasoo uu ku baraarujiyay in dadka ay kalluunka cunaan hase ahaatee dhibaatooyin weyn kala kulmay markii uu dadka barayay cunida kalluunka waa kan Cismaan oo arrimahaasi ka hadlaya ilaahay wuxuu igu talagalay bay ahayd waxa rabbi igu fududeeyay in aan Boosaaso kala bayr Qardho yaka Sanujiif Garowe gaalkacyo Buurtile aan talaagada dhigo halkaas aan ku wasico sida qaadka oo kaleeto kalluunka had meel aan geey seafood goor ma fuqtana waa ku soo wada waa ka soo noqday dadkii baa ii fahmay in ay kalluunka qaataan meherado oo waamo ay ugu horeyso ayaa waxay garatay in ay aniga ibadasho oo ay talaagada yar yar samaysato sababti ka dhalatay arintaasna hadda idinka waxba idinka taaban maayo oo howl dheer bay ahayd laakiin quruxdii baan wadaa sheekadu say ku timi seafood waxa la baddi baan dib ugu soo noqday 4 laash baan badda ku leeyahay anigu markaa mid tsunami baa iga qaaday 3 baa soo hartay 2 waa iibshay halna waa yaalaa waa garatay soo maaha kadib anoo sida xeebta u joogaa fikir kale ta ugu dhashay oo waxa niyahow sidee dadka marka aad ku sii fahamsiisaa kalluunka waxaan fuuray meherad seafood yiraahdo meherada waxaan ka furay City Plaza dhinaceeda dambe geerishka Cismaan Bayla dhinaciisa halkaas ay iga furan tahay muddo hadda 4 sano ah ayaan ku shaqaynayaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaah baa ma hadda iska leh bulshadu boqolkiiba 70 baan dhihi karaa in ay ii barata kalluunka maanta ay ii yaqaanin Cismaan seafood Cismaan kalluun meheradana waxaan ku sameeyaa dhowr nooc oo kalluunka ah mid waa ku foorneeyaa mid fry baan ka dhigaa mid scallop ahaan baan u sameeyaa mid suqaar baan ka dhigaa qof walba dalabka uu asagu jecel yahayna waan u sameeyaa oo waa siiyaa saxaafadda ayaa la sheegay inaysan inta badan dadka ku baraarujin cunida kalluunka haddaba doorkee ayay saxaafaddu ku leedahay in ay bulshada markaasi ku dhiirigeliso inay kheyraadka dhulkooda yaalla aysan gaajo kaga seexan ee ay ku baraarugaan agaasimaha TV-ga ETN ayaa isaguna sheegay doorka ay saxaafaddu ku leedahay wacyigelinta bulshada waxaana uu yiri doorka saxaafadda ahaan ay ku leedahay in loo baahan yahay in ummadda loo gudbiyo siday u isticmaali lahaayeen ama u cuni lahaayeen kalluunka uga faa'iideysan lahaayeen kheyraadkeena badda waa door muhiim ah saxaafadduna waa meesha koow oo runtii la oran karo loo gudbin karo bulshada Puntland malaayiin dad ayaa degan reer Puntland runtii ma haystaan baahi walba oo loo qabo kalluunka ma gaarsiisana bada kooban baynu leenahay laakiin badaheena kama faa'iideysano dadka ka faa'iideystana uma gudbiyaan kuwa ay u baahan inay ka faa'iideystaan runtii saxaafaddu waxay isticmaali kartaa waxqaab badan waxaa la samayn karaa doodo lagu wacyigelinayo sheeg cuna kalluunka oo kale waxaa la isticmaali karaa dadka laftigooda ka shaqeeya arrimaha kalluunka oo kale baa loo baahan yahay in iyagu la xiriiraan saxaafadda si ay u gudbiyaan waxyaabaha ay wadaan waxaa jira hadda sida aad sheegteen halkan ku cadaysan dhakhtarku sheegay sheekhu sheegay wasaaradda waxqabadkeeda ay ku soo bandhigtay iyo NGO-yada ka shaqeeya maxalliga iyo hay'adda FSF oo cadaysay inay wax badan bulshada u qabtaan waa muhiim laakiin yaa gaarsiinaya
waxaasoo dhan waxaa furo waa saxaafadda hadday aan lahayd joorna in lagu qoro hadday aan lahayd in idaacadaha FM-ka laga gudbiyo hadday aan lahayd kuwa AM-ka oo ku jira adduunka oo dhan laga dhageysanayo laakiin waxaan u baahanahay waa local ahaan kuwa FM-ka iyo TV-yada waliba TV-yada localka ah oo ummadoo dhan ay ku xiran yihiin waxaan dhahayaa waa arrin muhiim ah iminkana hadda wadayaal ku soo dhawaada daraamo yar ama ruwaayad yar oo ku saabsan faa'iidada kalluunka waatan cidda wadayaal daawasho wacan هذا ما هو داعي ما هو داعي هجيل جهايا وهجيل جهايا وهيلب حالي ويوجويا هيلب حالي كعشية شلي هيلب بيكو قضيتي أو كوكور عطي حالي هيلب بيكو عشية هيلب كي بساس وقلي يا هدي كلون عني لاد ساس من نقولنا وأنا كلون لغسيا ساعات لقى بالله هيلب لقوا ما أركي ترى والله معنا كلهم يستقبل هذا الدكاترة من لقوا ماشي كلهم الله يعني وأنا الدكتور لغوتونا والهو وضيع جاري الدكتور دكتور لغو وضيع هدير بنداري دلبيا أنسة محمد أنسة محمد مسجد أنسة لا يلا قال لها أنسة ما تدري أنسة تبارك آدي حاسة مستوى لا واحد جانا ممكن يجيب وعنا وآدي حملنا ما هو رأي الحمية ومنطقة ولا خاطر ما إذا بحسه قلت كان قاعد marka waxa weeyaan hilibgeel baa cuni jirtay hilibgeelka cuni jiraa marka hadda waxaan sameynaynaa hilibgeelka waa joojinaysaa kalluunkaad cunaysaa hadda hilibgeelka jooji kalluun iyo bariis baad cunaysaa haddii ilaahay maalintii waxaad cunaysaa ninka yihahdo duhurkii baad ku qadaynaysaa kalluunka cad garanaysaa markaas 10 beri ka bacdi igu soo laabo bal sida xaaladaada noqoto insha Allah صحيح هدي لها ما شاء الله والله أنا أفر بلي عمره عارف ما له كل كلونك الحمد لله شكر إلهي ما هدي سوى إنتان الحمد لله شكر والله أنا دتك كلو جيرنا معنا وحقوق طايرة أنا كلونك بتصدان سيدا أقول لك رحنونك معنا هين جري هدر تامرك كلونك لازمي الحمد لله شكر وافي أنا أفر بلي كلي عمره كورات كلون كان الحمد لله إنتان إلهي ما هدي سوى ولا دتك محقوق دع يجري إلا هلبك وإيدرنا نجري عوذ بالله ما الله وحكي في عمل ما شاء الله dadka kaloo macnaa hilibka laazimay waxa macnaa uu baaqay inay kalluunka badsadaan ee kalluunka laazimaan kalluunka caafimaad ayuu leeyahay macnaa lama oga mooy hadarta caafimaadkiisa ani ma sha Allah waa dareemay inta macnaa dadka ugu soo jeedinay Soomaalida ku nool magaalada Boosaaso
وحاجة داوديال أنت سان كسو جبنا برامج كي جار كاها أنا وقلت لك اللي وعي قلنتا يكفايديسك خيرات كبدا محي كقبتا عنتانك كلونك يكفايديسك هذا دين الإسلام محي كقبتا سيدو كله عافماد أهان محو كلونكو فائدة كيني كرا iyo waliba seed deegaanka loo ilaalin karo barnaamijkan wacyi gelinta ah ayaa waxa maalgeliyay hay'adda UNDP isla markaana waxa fulinayay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Puntland waxaana si toos ah u baahinaya TV-ga ETN xarumihiisa kala duwan ee Soomaaliya